kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashayda qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ka joogtaan daafaha dunidaba. maanta waxaan nasiib u helay inaan halkan idinku soo gudbiyo mid ka mid ah maansooyinkayga oo ah maanso aan aad u jecelahay. maansadani waxay soo baxday 27 bishii Tobnaad 2010. waana maanso jacayla oo ku dhisan qisam al-awaala. Soomaaliyo dhool ay saaleeneen kaftanka iyo dheeshaba saa waxa u sii dheer dhagdhagta iyo qosolka iyo soo dhaweynta barashada iyo dhibic jacaylo midba dhinac ku helayo oo dhaawacii qabo difku uu dhanqanan yahay waxay jacayl dhiteeyaan ka gudbaan dharaar adag. dhool baa waxay tiri dhoof Maraykanaan hela baritaan dhaqaaqiye aad sii dhoweysidee dhamma waan ku sugayaa dhaqaaqa iyo socodka dhoofka iyo orodka dhamma wuu ka naxayo waxa uu dharaartaa dhowr jeer ku yidhi hadal dhabtii waa ku jecele dhoolay walaal joog. dhool baa waxay tiri dhoof anigu maan rabin waalidkii dhalay baa dhoof la jeclaadee waan dhaqaaqi doonaa inaan dhiman ilaa ogi aad sii dhoweysidee dhamma waan ku sugayaa waqtigii la dhaafiyo waagii baa dhalaalo dhammoo aan habeenka qabanka hurdada dhigin ayaa dhowliyimiyo waatana baldheeho dhagahana u raarriday waqtigaaga dhowro salaadana u dheeree dhinaciisa jijabisiyo dhaardhaarashiyo been waa horaa la dhaafo wixii kuu dhitaysnaa ayaad soo dhuranaysaa oo aad caranaysaa tala kuu dhammeeyey addinkii afka badhow samirkana ku dheerow aakhirana waxu dhigo riyadii dhammaato isaguna dhanqalankii oo aqliya dhurbuurlow dheeldheeliyaa weli hadafka ka dhumay buu weli dhirinhirinayaa dhimasho iyo nolol buu weli kala dhex joogaa. qisadani gabankaa dhammaha iyo inantaa dhowla waa qiso dhex martay oo jacayla. waana qiso mala awaala oo aan kaga qayb galay jirtan ka dhacay dhalinyarada hal abuurka dhexdooda. dhama iyo dhool waxay ahaayeen laba qof oo markii hore isbartay muddo dheerna wada sheekaystay jacayl dhib badanina u dhex maray. waxay kasoo gudbaan dhibaatadii oo ay maalin kasta usoo biyadhaansadaan dhinacii wanaagaba. maalintii ay islahayeen hadday idinku dhowdahay ayaa inantii dhoolahayd layidhi dhoof Maraykan ah kusoo baxay. kadib dhool markii warkaa maqashay waxay u sheegtay inankii dhamma ahaa waxayna ku tiri saasaan iyo jirto dhoofkaa soo baxay Maraykan oo aanan filanaynin aniguna raalli kameeyey haddana dantaa keentay inaan kaa tago. gabankii dhamma ahaa waa kan inantii baryay laha dhoolay walaal joog dhabti waa ku jecele balse wax qoran bay ahayd oo maalintaasoo ninkii la wada joogay adigu subaxnimadii habeenkaasuu ka tegay dhool dhame. habeenkaas isagoon dhabanka hordada dhigin ayaa waagu dib ugu baryo ugu soo laabtay. sidaasaana diyaaradii ku saaray. kadib marka diyaaradii raacdayna waa tan mushkiladana dhacday ah in diyaaradii dhacdo inantiina dhimato. dhama markii uu maqlay dhimashada gabadhii oo aadka u jeclaa dunida loogu jeclaa waa kan go-aanka gaadhay ah inuu ka dheeraado meel bani aadanba joogo. waana kan xayawaan kala darsay duurka iska galay. muddo 6 sanadooda kadib waa tan dhama iyo dhool ay wada sheekaysanayaan ee gabaygani dhex marayo. runtii gabaygani wuxuu ka mid yahay gabayadan u jeclay sugaantayda. sidaas baan ku soo xamarayaa qisadii gabaygaas. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Change your mind, you going home, yeah.
and not Sprite. Also a fly man like kite. Well, for the longest time we jamming in the party. I don't want it on me, pushing it